بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعي ومرسل إسماعيل عمر وحنين مواطن رير سوماليلاند waxaan jecelahay inaan halkan hambaliyo uga diro dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kasta oo ay ku sugan yihiin gudaha iyo dibadda inaan ugu hambaliyeeyo munaasabadda 26 Juun 1960 sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii Somaliland ay xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii dalkaasi Britain oo maanta 60 sano laga joogo. waxay ahayd maalin Somaliland farxad weyn ku ahayd inay xornimadeedii hesho, balse nasiib darro farxaddaasi may sii waarin markii reer Somaliland ay calankooda qaadeen iyo dowladnimadoodii iyo xornimadoodii ay qaadeen ay geeyeen Afrika ka bacdi koonfurtii Soomaaliya oo markaas iyadu maxkamiyadda Talyaanigu ay haysatay ay calankooda u dhiibeen. Somaliland waxay dib u gashay gumeysi cusub oo kii gumeystaha ee shisheeyaha ka xun oo gumeysi sokoye u gashay. waxay awalkii horeba ku weyday muwaadinimadeedii iyo qadarinteedii iyo sharafteedii. waxay weyday ra'iisul wasaarihii, madaxweynihii, wasiiradii, maamulkii. waxay tagtay meel aan laga soo dhaweyneyn oo aan la dooneyn. iyaga markaa waxa waday wadaniyad Soomaali jacayl, yani fikir dheer oo ay qabeen oo ay doonayeen 5 Soomaaliyeed inay dhashaan oo ay Soomaalidu horumar gaadhaan oo ay isku xidhnaadaan oo noqdaan dawlad adag oo geeska Afrika ka talisa oo wadamada jaarkeyga ee dhigeega sida Kenya, Ethiopia u dhiganta oo xagga awoodda la babacdigta. laakiin Soomaalidii kale ee ay koow ka ahayd Soomaalidii koonfureed may dooneyn in walaaltinimo iyo la iskugu yimaado oo la midoobay dooneyn, laakiin waxaa go'aan ka yimid xagga Somaliland. wada ogtiino sida taariikhda lagu sheegay markii ay wafdigii reer Somaliland ay tageen Soomaaliya ee ay la kulmeen madaxweynihii markaa Soomaaliya haystay ee Aadan Cabdulle Cismaan. waxa uu si cad ugu sheegay reer Somaliland inaanay wada shaqeyn karin oo aanay dowladnimada isku darsan karin. sababtoo ah wuxuu yiri laba qaawan isma qaadaan. waar idinkuna iska taga dowladnimada dhista oo horumarka ka shaqeeya diidna markan horumarka iyo dhaqaalaha ka shaqeynaa aan isku soo noqono. halka waxa kaaga cad inay ka cagajiidayeen oo ay dooneyn in Soomaaliya ay midowdo, laakiin waxa qorshe ka yimid xagga waqooyiga. tiibaana sii socotay waxay keentay inay Somaliland wax la wixii xaq u lahaayeen waayaan. markii dambana loogu daro in halkii abaalkooda loo gudi lahaayay ee la xusi lahaa in loogu daro in la laayo, in la dilo, in la raadsado ganacsatadooda, siyaasiyiintooda, mutacalinkooda, in kuwa la raadiyo oo la laayo. waxay noqotay in lagala dagaalamo xagga dhaqaalaha, waxbarashada oo loo diido Somaliland in jaamacad laga furo, in horumar laga sameeyo oo guriyo, fooqiyo, dabaqyo, in warshado Somaliland gudaheega laga furo oo horumar iyo oo waxba loo diido. balse alxamdulillah rabbil caalamiin taasi may sii socon oo shacabka reer Somaliland waxay ka dhiidiyeen gumeysiga cusub oo ay ka dagaalameen. runtii wuxuu ahaa gumeysi ka xun kii Ingiriisku gumeysi Somaliland kuma hayn kaliya dhulka Somaliland uu joogo danaag gaaro oo u yimid baa jiray oo inuu halkan ka difaaco maraakiibtiisa caadan maraya oo ahaa wixii u yimid Somaliland ayuu ka fulin jiray. laakiin gumeysi kale oo reer Somaliland uu keeni jiray oo dhibaato may jirin. muusoo dhex geli jirin dhaqanka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, muusoo xagga diinta ka muusoo geli jirin. waxa ahaa maxkamiyad dusha ka maamusha sida imkaba Ingiriisku wadamo badan u maamulo oo boqoradu maamusho unbay ahayd. laakiin gumeysiga aan Soomaaliya kula tagnay walaalihii koonfurta Soomaaliya ayaa ka xumaa kan maxay ahaydey Ingiriiska. balse shacabka reer Somaliland waa shacab wanaagsan oo ficil leh. way ka dagaalameen dagaal weyn oo galeen ka bacdi waxay la soo noqdeen goor isku taagoogii
alxamdulilah rabbil caalamiin. Maantana wataa Somaliland ay harsanayso ee geeska Afrika ay noqotay waddanka keliya ugu nabdoon dimuqraadiga waddanka keliya ee madaxweynayaashu si doorasho oo dimuqraadi ay isku bedelaan. waxay noqotay meel Somaliland waxay noqotay meel ka iftiimaysa oo ka warwaraysa geeska Afrika hadday tahay xagga dimuqraadiyadda, hadday tahay xagga nabadda iyo horumarkaba. haddaba maanta Somaliland maxay u baahan tahay? Somaliland maanta waxay u baahan tahay inay ilaashato nabadgelyadeeda, inay ilaashato qarannimadeeda. waad ogtiinoo waxyaabaha socda waad arkaysaan iyo dhagaraha Somaliland la doonayo in mar kale lagu muquuriyo oo dib loogu gumaysto.